hoggaanka baarista dambiyada hoggaan ahaan wuxuu u hoos tagaa taliska laakiin maamul ahaan iyo gudashada waajibka wuxuu u daba fadhiyaa xeeraalyaha hay-adaha dambi baarista ciidamada sida CID-da hoggaanka baarista hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo kan milatariga waa meesha dhumucda u ah asalka qofka tuhunsanaha ah xorriyadka qaadistiisa muddo aan dhaafsiisnayn 45 cisho iyagoo awooddaasi weydiisanaya garsoorka dalka laakiin habdhaqanka sidaas ka baxsan waa dhaqan aan dawli ahayn mar haddii lagu soo xiro hoggaanka baarista qofkaasi haddii la geeyo xeerdhaalintii loo geeyo maxkamadihiina loo sii geeyo oo ay ogolaadaan xarigiisa ayagoo fiirinayo eedda lagu eedeynayo maangalnimadeeda fiirinayo qofkaasi xarigiisu waa sharci waana xalaal xarigiisu magaca iyo sifadu qaadanayana waa qof eedeysanaa oo la dacweynayo ilaa ay maxkamada ka bariyeesho ama ku xukunto haddii qofka la soo xiray oo aanan la geynin xeerdhaalin iyo maxkamad toona oo aanan sharcigii la geynin qofkaasi wuxuu ku xiran yahay sharci darro waana xaaraam xarigiisa sifada iyo magaca uu qaadanayana qofkaasi waa qof afduuban cidda afduubtana meel kale ha ka raadin waa mas'uulka xukuma meesha uu ku xiran yahay cid kasta oo diiwaanka dawladnimada ku jirto ayaa la faray hay-adaha baarista inay ka furaan golxogeed dhammaystiran si la isu waafajiyo howlgalka amni iyo xogaha innaga dhexdeenna ah marba haddii aysan jirin awood argagixiso oo u babacdhigi karta wiilasha iyo gabdhaha huwanta ah ee cadawga ku eryanaya kaymaha amnina goormo sugmaa su'aasha jawaabteeda maxay ahayd amni goormo sugmaa amni wuxuu sugmaa markii xogta iyo howlgalku ay midaysan yihiin waxyaabaha aan rabno ay baaristu inay qabato waxaa ka mid ah dadka saraakiil ama mas'uul ama shaqaale dawladeed oo ehelkiisa iyo aqribadiisa ay argagaxisada jiraan waa inaa gal dacwadeed loo furo su'aalo la weydiiyaa haddii ay caddaatay inuu ogayo xogtiisa uusan gudbinne dacwad ciqaabo lagu soo ogaa si tilaab looga qaado suuragalnimada fal dembi ah in la isaga aamuso sida maanta oo kale sanad ka hor qarax ka dhacay dawladda hoose ee uu ugu dambeyn ku geeriyooday allaha u naxariistay duqii muqdisho injineer yariso ayuu meesha ka saaray in aan looga harin guddi baariseed aan sharciyad haysan gaashaanle sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo kula hadlayay dembi baarayaal dugsiga tababarka booliiska jenaraal kaahiye sidaan u aamusnayn oon shib u dhaheen oo nin kastoo mas-uula loo dilaayay oo qofka ka muhiimsan loo dilaayay muwaadinkii koowaad ee caasimadda injineeriyiisu waa gurigiisa xafiiskiisa inta loogu galaa la qarxiyay asiga iyo mas-uuliyiintii kale ee caasimadda ka shaqeeyay awa galkiisi hadda yaa ku qoran waa in galkiisii furaadaa intii laga gaaraayo qofkii dembi falihii rasmiga ah intii laga helaayo waa inuu galkiisa furnaadaa keliyana maaha waa inuu kobcaa mar kasta oo la ururiyaa xogaha la xidhiidho dhacdadaasi fariimahan iyo kuwa xigaba waxay ka dambeeyeen gaab ka yimid hay-adaha baarista ciidamada waana sababta kulandaceedka maanta ay isugu yimaadeen garsoorka ciidamada iyo baarayaasha dalka fadhiyo maxkamadeed oo aan dhammaystirin tilmaamaha jenaraal cabdulaahi buula kame xeelaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa sabab u ahaa isweydaarsiga madashan laga gudbay xilligan wuxuu ka hadlaa xaashida tusaalaha baarista diyaariyada la indaajino hadda faylasha inta badan diyaariya ma lagu soo xiraa baarayaasha tiin waa weydiinayaan aaway buugaagtii booliis ku shaqayn jiray oo biiga marka laga tago buugaagtii booliis ku shaqayn jiray oo rikoodhka ahaa buugga dembiyada buugga dacwadaha buugga hantida maxbuuska buugga dembiyada waxaa lagu qori jiray any dembi oo dhacaso dembi kasta oo dhaca Soomaa haddii la qabtay iyo haddaan la qabaninba Soomaa raadki aawo waa in la tagaa goob kasta CID waa inay diyaar u ahaataa goobtii wax ka dhacaanba inay tagto oo raadadkii soo ururiso hataa haddii kiiska nabad sugiddu ay baarayso caawimay ka noqonayaan waxay u geynayaan raadadkii garsoorka ciidamada qalabka sida ayaa ballanqaad uga dhigay awoodsiin sharciyad madax bannaan in ay u helaan baarayaasha kiisaskooda halka kuwa ay ku talagal ka tahay isdabamarinta la waafajin doono ciqaab sharciyadeed jenaraal cusmaan cabdulaahi maxamed kaniif taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska oo goobjoog u ahaa ishagiddan sharciyadeed ayaa weydiistay garsoorka ciidamada inaysan kaga filnayn kulanka maanta balse ay hadda kadib kulamada lala joogteeyo gudoomiye waxaan kaaga mahad celinayaa adiga iyo xeer ilaaliyahaba inaad shirkan noo soo qabanqaabiseen codsateen si shaqada u socoto arrimo badan baa halkan la soo dhigay
biliiska taliska biliiska wixii quseeya oo halkan laga sheegay waa xalilina si degdeg waa xalilina hadii ilaahay si shaqadu u socoto oo la isku fahmo wixii biliiska taliska xaqiisa jira jawaab cad baa kulankiisa ka keenayna hadii ilaahay adinka waxaan ka codsanaynaa gudoomiye inuu soo ahaan shirkaani maanta kii koobaad inuu noo socdo socodkiisana inaan ka faa'iidno in la isdhaliilo kabacdina la isisaxo weydiimo kale oo ka yimid baarayaasha una badnaa iswaafajinta saldhigyada iyo baarayaasha iswaafajinta hay-adaha baarista ciidamada baaristooda habdhaqanka fadhiyada iyo xafiisyada labada dhinac iyo farsamooyin kale ayaa la isaga jawaabay maalintan waxayna taliska booliiska iyo garsoorka ciidamada dhabarka u riteen isku duwidda howlahaasi inta taakada sharci ay kaga ogoshahay cabdiqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho